daawadayaal ku soo dhawaada niyad sami iyo kalgacayl. Maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa arooskii adduunka ugu qaalisanaa ama arooska qarniga. Waxaa idiin daadihin doona anigoo ah Maxamed Aadan. Arooska wiil u dhalay milyaneer Hindi ah oo ka dhacay dalka Talyaaniga ayaa noqday arooskii ugu qaalisanaa dunida, kaas oo lacagta ku baxday awgeed loogu magac daray arooskii qarniga. Waxaa gashay lacag lagu qiimeeyay $20,000 oo u dhiganta 14 milyan oo giniga sterling ah. Sida wakaaladaha wararku baahiyeen, Rohan Mehta oo ah wiilka kaliya ee u dhalay milyaneerka reer Hindiya, Yogesh Mehta oo ah ganacsado leh Petrochemical Empire ee magaalada Dubai ayaa ku kacay lacag ka badan 14 milyan. Arooskan oo ka dhacay magaalada Florence ee dalka Talyaaniga ayaa marti sharaf caalami ah oo gaaraysa 500 oo qof oo ka mid yihiin siyaasiyiin, ciyaaryahano, fanaaniin ka soo qayb galeen ayaa wuxuu soconayay muddo 3 maalmood ah oo uu soconay damaashaadka iyo fantaastigada. Yogesh Mehta oo ah aabbaha dhalay ninkan ayaa isagu sanadkii 1995 magaalada Dubai ee istaga Imaaraadka Carabta ka aasaasay shirkad ganacsiga kala duwan ee Petrochemical Empire, taas oo uu macaash badan iyo hanti aan caadi ahayn oo $100 milyan ah uu ka macaashay. Arooskan ayaa lagu qabtay hodheel weyn oo dunida caan ka ah magaalada Florence ee dalka Talyaaniga, kaas oo uu xiddiga waaweyn ay ka mid ahayn kuwa ka soo qayb galay. Haddaba dadka adduunka ugu taajirsan 3 meelood oo 2 meelood ayaa hodheelkan lagu qabtay arooska ka soo qayb galay oo u soo dalxiis tagi jiray. intaa waxaan u dhamaaday muuqaalkeeni. Fadlan hadduu muuqaalku ku qanciyay, subscribe gale, la wadaag asxaabtaada, share iyo comment-ina.